السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal barta kulanka reer kobciye meel walba oo aad adduunka ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa habeenkeennii, waa barnaamijkeennii aan isku xog wareysan jirnay. ilaahay idankiis waa kala xog qaadanaynaa wixii su'aalo ah iyo wixii maaragtay xog isdhaafsi ah insha allahu tala ah ayaan ku wadaagi doonaa. barnaamijka waxaa igu weheliyo walaalkay sheekh cabdulaahi abu cabdulaahi iyo walaalkay injineer cabdiqaadir iyo sidoo kale profesor salaad fidow. dhammaantiin soo dhowaada, barnaamijka waan furanaynaa. abu cabdallah ha noogu furo aayado qur'aan oo min dikri alxakiim, waxa lagu furta ayaga u wanaagsan. ilaahina wixii shar ha naga qabto, wixii khayr ahna ilaahay hana soo aadiyo. mashruucaanna mid guulaysta allaha nooga dhiga. soo dhowow walaalkii abu cabdallah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ليال بعض الرجال كبعيد لما أنت من ملات شوكتان بمدن يالي مروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملات شوكتان بهذه آخر واحد بركيو أخيارتنا إلهي إلهي نو بركيو وشروعنا إلهي هاي نو أسطر لما انتنبأ انت كبعدي آدمكم هالعلنية دكتور محمد رشيد، جزاك الله خير، بارك الله فيكم يا لما انتنبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء. walaalkeen aayadaha qur-aanka ah oo qiimaha badan kadib, walaalayaal meel walbood joogtaan soo dhowaada, qalbi furan iyo walaaltinimo ku soo dhowaada. waxaa weeye ruuxa hadlaya oo keliyata makarafoonkiisa inuu furan yahay, inteena kalena inaan xirno. waxaa wanaagsanaanaya codka ismaqalka ayaa wanaagsanaanaya insha allah. su'aalaha dadka su'aalaha qabo farta ha taagaano. soo gal markii la yidhaahdana horey ha ka soo galaano insha allah. waxaan rajaynaynaa waqtiga oo kooban in aan ka wada faa'iidaysano biidnillaahi tacaala. waxaan leeyahay soo gal ubax kaahiye hadday maqlayso ha soo gasho. update marka hore update-ka haye professor. update-ka waxaan rabnaa injineer cabdiqaadir inuu update-ka na siiyo iyo professor fidow midkood. soo dhowaada. update-ka waxyaabihii toddobaadkan professor fidow bixinaya update-ka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان الصحافة كجرت هالكان update-ka u dambeeyey oo shirkeennii u dambeeyey aanu ku yeelanay maalintii khamiista aan soo dhaafnay. waxaan ka hadalnay barnaamijkii culummada iyo sida aan kula kulmi lahayn. waa tii horay culummada loo gaarsiiyey akhbaartii ama mashruucdii inaan fadhi wada yeelano, presentation loo sameeyo iyaga, kadibna wixii ay akhriyeen aan ka falanqoonno, waxay su'aalo ka qabaan meeshaas ay ka jawaabaan. marka wixii ay la tahay iyakana
ra'yigooda xagga sharciga ah iyadoo la fiirinayo iyo wixii ay maaragtay ay nagula talinayaan dhammaanteed. arrintaas markaan adiga dhammaystanay kadib waxaan wacnay sheekh bashiir. sheekh bashiir waxaan u sheegnay in dhankeenna aan diyaar nahay waktiga aan kulmi lahayn. marka sheekh bashiir wuxuu noo sheegay in ayaamahan kulamo fara badan ay jiraan. marka annaga waxaan dhahnay waxaan idin siinaynaa choices oo micnaha kala doorataan. waxaan dhahnay haddii alla idmo talaadada ama khamiista ayaan dhahnay midkood inay noqdaan kulankeenna. shiikha waa naga aqbalay laakiin wuxuu codsaday in uu dib saxaabtii u ballimiyo meeshaas uu markana soo siiyo confirmation ama ta'kiid oo waqtigaasi inaan isku waafaqnay iyadoo aan filayno injineer cabdulqaadir oo nooga maqan xagga hargeysa oo axadda soo noqon doono. marka sidaas ayaa updateka u dambeeyey oo ahay arrintii culummada ayaa maaragtay noogu dambeysa arrinteenna. wixii kaloo dheeraadahna injineer cabdulqaadir ha ku daro. برسول فيديو وما تصدقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي مالك السجوك تأدونك مقالة هرقيسة السلام يا وعبد القادر عمر. دينعي أبديت هذا نسيو هرقيسة إنكستو شقوين كلانو أميت لكن هذا ما عرفتي وحن آد أرادي علماء إنان هيلو غير هرقيسة وحن شالي كولاني المدة هرتسان أرادينا يشالي وحن كولاني mushkiladda jirta halka waxa culimadii wada busy way ayaga dhanba waa wada mashquul saad ku hesho ama waqti uu ku sii ayaaba aad isaga adag marka sheekh Usmaan Langare ayaan shalay is aragnay alxamdulillah marka sheekhi waan u sheegay arrintii kobciye marka wuxuu yiri arrinta waxay u baahan tahay in culimada aan isu imaano bal berito xafiiskana uu imaa yiri sabdiga ah كل حفيسي لين هالكان أو شقدير ياسجع يومارك علماء كله أي فريستان مركا بري كو طبعا إن شاء الله ملهاس أيام بلصلنا هاي هنا أتجاون لحد له الدول اللي له أريد أكلم قديشو حاجرتي ليسنس كي عن دولة كهي سنة وحدا يا جنوري الدول اللي له مركا أنا نحن أباهنا إن نسي عن application كي أو موبايلك aan u upload gareyno oo maaragtay Play Store iyo Google Store iyo Apple Store aan gelino ayaga waxay u baahan yihiin muxuu ahaa license valid at least ugu yaraan 6 bilood marka danta waxay nagu qasabtay inaan 2 bilood oo noo dhinaa aan iska kansalno oo aan mid cusub samayno sababta wasaaradda markaan geyno waxay yiraahdeen macnaha aniga xaq yar aan kaga bilaabi karnaa maahay January waa ina sugtaa hadii kale marka 2 bilood saasaan isaga kasalnay oo haddeer inay soo cusboonaysiiyaan ayaan go'aansanay si aan maaragtay u upload gareyno applicationkaas oo dadkana ay usoo degsadaan marka arrinta meeshaas maraysa updatekeena. Assalaamu calaykum. جزاكم الله خير ما شاء الله حوي intaas waa intii update-ka ahayd oo toddobaadkan tallaabadii la qaaday iyo meesha wax marayaan ilaahay idankiis waqti dhow waxa weeye waxaan tirin doonaa dadka ku soo biiray kobciye oo lacagta bixinaya ayaan tirin doonaa cadadka intuu gaaray dadka say u soo galeen ayaan ka hadli doonaa wax ka gedisan waxaan hadda ka hadlayno ayaan u gudbi doonaa insha Allah waxaan hadda ku soo dhaweynayaa in uu su'aashiisa jeediyo ruuxa markii la yiraahdo su'aasha jeedi meesha uu joogo iyo wuxuu noo sheegayaa iyo magaciisa iyo meesha uu ka soo hadlaya ayuu sheegayaa si dadka u ogaadaan ilaahay idankiis marka waxaan dhihi lahaa oo aan soo qabanayaa Shucayb Calas waa cusub yahay saan isleeyahay soo dhawow Shucayb magacaada iyo halkaad ka soo hadlayso u sheeg dadka Shucayb
qofka marka loo yeero fadlan batanka ballaaran iska taabo batanka ballaaran ee dhexe ee hoose taabo kadibna hadal السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا فاهمين دي برنامج وانا فاهمين waxa uu yahay nala yaabin walaal waan dhawahay waxaan joogaa magaalada Boosaaso magacaygu waa Saciid Maxamed Ismaan ama Saciid Cali Ismaan barnaamijkan waa la socday shacab beel sanqar badan aad joogtaa fadlan ka dhex bax meel sanqar badan aad joogtaa buuq codkaaga si fiican loo maqlo ها walaal waxaan joogaa magaalada Boosaaso aan joogaa barnaamijkan si fiican la socday waana mahadsantihiin waxaan rabaa marka xilliga uu bilaabanayo barnaamijkan uu bilaabanayo iyo qaabka lacagta loo bixinayo in waxa weeyaan la fahansiiyo maadaama aan anigu hadda dhawaan aan macnaha barnaamijkan aan arkay aan ku soo biiray waana macnaha hore wax badan aan uga socdo marka su'aashaasaan qabaa barnaamijkan waayo walaalkay Sucayb horta qaabka maaragtay lacagta loo bixiyo iyo kulli wax walba way cad yihiin oo waxay ku cad yihiin meesha inaad gashid qaybta kale qaybta hadda aad ku jirtay kobciyo cooperative markaad cinwaanka taabato xagga hoose waxaa ku soo baxaya kelibiyo badan iyo information fara badan iyo su'aalo iyo jawaabo fara badan ku soo baxaya su'aashaas dhowr jeer ayaa laga jawaabay si cad ayaana looga jawaabay oo qof kasta oo maaragtay uu ku qanci karo xaggaas ka raadi su'aashaas oo ah qaabka lacagta loo bixinayo iyo qaab maxay tahay lacagtaas waxa miyaa loo baahan yahay marka baasaboor ama maxaan ku raahdaa laakiin goortu bilaabmayo sooma horta allahu aclam anaga waxaan jecelnahay xaggeena awooddeena ahaan lahayd ya hayo walaalkii waa mahadsantihiin markaasaan ka baaraya haddii lahayd waad mahadsantihiin halkaasaan ka fiirinayaa wixii kale oo faahfaahinayso xagga waxa weeyaan laguma soo marka ama su-aashaada kale ahayd goormayd bilaabaysaa goormayd bilaabmaysaa insha allah kulli waa rajayna inay sankan gudihiisa intuusan dhammaanin ha waaya aada marsanta laba culimadaas aan ka sugaynaa inay wax kaloo noo harayba ma jiraanba inay culimadaas noo approve gareeyaan oo noo ansixiyaan maaragta sharciga keliya noo haray wax kaloo na hortaagan ma leh insha allah ilaahay noo fududeeyo haye walaalka borso maxamed shiid awil soomaali awil magacaaga iyo meesha aad joogto hore ugu soco السلام عليكم magaygu waa Cawil Axmed Maxamed waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhawow Cawil soo dhawow aad ma sita codkayga ma la maqlayaa nadiif ma lagu maqlaa waaya waxaan rabaa in waa lagu maqlaa ku soco su'aashaada ku soco awil khadka kugu adag khadka codkaaga waa gogo'ayaa mustaqbalka soo socda waxaan rabaa inaan ogaado hadda maxay tahay qorshaha la dejiyey lacagtan dadka laga aruuriyey oo aniga aan ku jiro hadda waa u soo noqon doonaa nadka daciifka ah saan filayo maryan abukar su'aashaada ma caddo walaalkii waxa waaye mashaariic waxaas hadaad leedahay yani waxaad ka ogaanaysaa halkaas cawil waa kuu soo noqonaynaa maryan abukar qasan yahay Hello.
هلو ما اسبق لا waxaan filayaa professor rashiid ina maqal mayaan filayaa cali abukor ku soco anaa insha allah u yeedhi doona cali abukor su-aasha batanka weyn taabo markuu ku noqdo walaalow cagaar su-aasha weydii اسبق لا اي walaal cabdiqaadir wuu kaa ogaaya السلام عليكم. عاو ما Hello. Hello. maryam walaal ku soco ما مغلسة. Hello. هلو السلام عليكم. ها waan Hello. ku maqlaa maryam I think waxbaa ka khaldan. Magacaygu waa Cali Abukar. Cali ma aha. May maqli kartaa? اوكي اوكي maryam abu ابو karso عبد الله بل سيقا اديك سيقا انا بس كشك انا ليه مقلين في لا maryam abukar waad ku jirtaa soco ها hadal السلام hadal عليكم. السلام عليكم ورحمة calaykum الله وبركاته. magacaygu waa Cali Abukar. Waxaan deganahay London. waxaan kaliya doonayay kolay su'aalaan qabay kali waa laga jawaabay alxamdulilah waqti lama sit up garayn so miyaa bal hadda ka war lacagta انا la wax ma bilaabay maqlo hello haa cabdiqaadirow waan maqlaa walaal ku soo noqo intaad ka baxdid ku soo noqo caaliya waan ku maqlaa ha walaalo waad mahadsan tahay waxaan degan Cali Abukar bayaan magacayga weeyaan Londonna waan deganahay waxaan kaliya oon rabaa inaan idin weydiiyo xilliga la bilaabayo lacagta weli miyaa dheyd la sadab gareeyay la qabanayo بسم الله وما كنت ولا شيء ولي لما قبل وقتي علماء شرعي لسه كبير لو سمي أي علماء لما أكون مقال إن يسوع صحيان مركا أيضا أسبوع سو صعدا بلانسنا الأميرة مركا كدب أمبا مع كل شيء كرا وقتي exactly بالله من دون إن شاء الله جزاكم الله خير وياك ruuxa ku xiga waxaa xiga ubax kaahiye haddayna maqlayso ubax kaahiye meesha aad joogto ubaxa noo sheeg وبح هذا اللي صوق الشيء هذا السلام عليكم calaykum salaam عليكم waraxmatullah السلام ورحمة الله caawa qad ma jire hibar waaye haa khadka waa la yaaban yahay caawa maxaa dadka ma isaga bat ما ku ولا soco شيء ku soco واحد ما له واسكه هجاجة مرمرة سؤال كوسع إن شاء الله su-aasha aan qaba aniga waxa waaye aniga horta waayahan dhan waan ka maqnaay kulle sabti in la qabo jirno waa waay marka waayahan dhan aniga waan ka maqnaay waa miyaan la qaban waa ashakii waxaan isiri maxaa kaa qaldan xataa maxaa marar waxaan isiri ma telefonka kaa qaldan waxa ka qaldan yihiin marka su-aashaan qaba waxa waaye aniga inkastoon cusub hadda inaan loo 3 bilood miyaan wax yar aan ku jiro meesha weli hadda cawada xilliga cawada koobaad ii tahay aan ka soo hadla meeshaan waxa waaye inkastoon wax badan aan soo dhageysto hadda aan wax dhaxa ii laabnayn aan cilmi dhood meesha ka haysto qaabka lacagta loo tuuraayo xilliga la bilaabayo
intaasaan qabaa hay engineering wax waran hal xabana la maqli maayo بسم الله ولا ولا شيء وما ubax arrintaas waa laga hadlay wax heerka horena waa laga hadlay qof ka horreeyay wax ma maqashin hadda idinka qof ka horreeyay oo su-aashaasi maaragtay yani loo jawaabay ayaa jirtay qaabka lacagta loo bixiyo maxaa maqasho hadda kan qaabka lacagta loo bixinayo way cad walaala wax ma la tahay maqlo hal xaba ma la maqlo oo horaa loo ubax soo mar dhow sheegay ayaa laga jawaabay oo su-aashaas siduu ku sheegay injineerka qaabka lacagta loo bixinayana iyo marka la furayana bartaan ayaad kala socon doontaa su-aashaana marar badana laga jawaabay ma anigu aan ka maqnay waan ka maqnay intii bishaan socota waan ka maqnay qadka meeshaad ka arkaysaa marka hadda qoraal har miyaa loo soo dhigaa marka hadda waxaa ma maqlay waxaa ku maqlay ama goorma la bilaabaya waxaan culimada ayaan ka warsugeynaa oo sharciga xaggooda uu ku maqan yahay sharciga kooxiye loo sameeyey ayaan ka warsugeynaa insha allah markaasaan go-aan rasmi aan qaadan karnaa oo waqtiga bilaabmaysa laakiin waxaan rajaynaynaa sanadka intuusan dhammaan insha allah si fiican u maqlanaa insha allah waxa weeye waxaa la sugaa sharciga markuu dhammaystirmo wax kaloo haray ma jiro insha allahu tacaala ubax inaad fahantay aan filayaa sharciga markii la dhammaystiro wixii ka dambeeya waxa weye sidii loo furna xanad xuseen xanad meesha aad joogto iyo magacaada xanad xuseen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تفضل soo dhawow waan dhowaa walaal waxaa rabay su-aasheeda waxay tahay horta barnaamijka waxaa la socday ilaa iyo 3 bilood camal waa la socday caawa markii ugu horreysay aan ka hadlayo meeshan marka su-aasheeda waxay tahay sidee ay ku dhaqan geli kartaa NFD iyo dhulkan Soomaali galbeed iyagoo ay dowlado kale ay yani ka amrayaan ay ka talinayaan sidee loogu dhaqan gelinayaa hawshaas waxaanad oo mahadsan tahay waa lay maqlaa soo maha malay maqlaa waxaanad waa mahadsan tahay waddan walba sharcigiisa ayaa lagula dhaqmaya leanno company marka multinational company markaad maqasho oo company waddan laga leeyahay waddan kale uu tagayo waddankaas sharcigiisa ayuu apply garayaa marka taas wax dhibaato ma laha waddan kasta sharcigiisa ayaa lagula dhaqmaya sidee marka haddii lacala ay dhahaan yani idinku waxaa sidaa sheegteen qof walba oo Soomaaliya soo galaya dhacday hadday dhahaan yani waxaa loo baahan yahay sida muhiimadda dadka dhan inay wada qaataan barnaamijkan ma fahmin su-aashaada adigu waxaa tiraahda yani Soomaali kaliya loo ogolyahay hadday dhahaan qof walba dowladda kale yani sida kasoo example dowladda kale oo yani dowladaha kale hadday dhahaan sida Kenya iyo Ethiopia ay dhahaan yani waa loo
kale waa in loo fasaxaa macnaha kambanigan businesska company dadaa iskale company walbana qof baa dadaa iskale oo shareholders ah haddii sheerka loo furo dadka kale waa la gelaya haddaan loo furin cid kugu qasbaysa ma laha haddii laakiin ay shardi ka dhigaan anaga waxa markaa guddiga markaa hawsha maamulayo ayaa ka fariisanaya waa go-aanka iyaga qaadanaya wax dhibaato ma laha haye waa mahadsantahay walaal su-aashaas keliya aan baan ahaa inaan ogaado wax walba xal ay leeyihiin problem kasta xal uu leeyahay marka xilligiisa marka la gaaro ayaa xalkiisana la helaya insha allah haye waa mahadsantahay thank you insha allah adiga mudan soo dhawaaw umu maxamed haddayna maqlayso meesha aad joogto iyo magacaadoo dhammaystiran umu maxamed walaalayaal ha la xiro mikrofoonada markuu ruux hadlaayo mooga inteena kale inaan xirno mikrofoonada ayaa wanaagsan si loo maqlo maqalka uu noogu wanaagsanaado insha allah umu السلام maxamed عليكم ورحمة الله وبركاته calaykum salaam waraxmatullah meesha aad joogto iyo magacaaga magacayga waa maxamed safiyo cumar maali dhahaa waxaan kasoo hadlaa UK su-aashii aan qabay dictor waa laga jawaabay waa helay jawaabteeda qof kalaan siinaa insha allah baaraka allah fiikumna waa mahadsan tahay jazaak allahu khayr allah ku sharfo muuse maxamed ku soo dhawow muuse su-aashaada iyo meesha aad joogto magacaada waa muuse maxamed meesha aad joogto noo sheeg su-aashaadana degdeg waktigaa nagu socda insha allah halo hadda waa la maqlaa sooma haa waa lagu maqlaa muuse si fiican hore u gal waxaan joogaa gaalkacyo waa muuse maxamed waxaan joogaa gaalkacyo aad iyo aad baan inii salaamayaa anigu waxaan ahay dad muddo badan la socday barnaamijka meel kasta uu marayo wax su-aal lama qabo keliya waxaan wadaa bogaadin aan dadka u dirayo qoladiinaan hogaamiyaha oo dee wax inoo wada waxaan leeyahay niman yahow aad iyo aad baa u mahadsan tihiin khayrna allah in siiyo hawl weyn baad runtii dhabarka u ridateen oo bogaadin aad ku mudan tihiin waana inaad u digtoonaataan ood ka digtoon waxyaabaha weerara aynu ku imaanayo oo carqalada aynu ku imaanayo waxaa la yidhi nin la toobaya in la tiifiya waa ogyahay waa inaad taas u dhigma lahaataan horena u socotaan guuli goboni baan leeyahay dadka bulshada soomaaliyeed oo soomaali weyn oo meesha ku wada jidhana waxaan leeyahay badow waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal bil qaday hal beri koondari weydo muddo badan qarniyaal baanu soo boorjiifnay oo aanu fakri soo jiifnay waxaan leeyahay walaalayaalow hala samro oo su-aalaha qaarkood halaga gudbo hanaga talansulo taas waa mid tan kalena waxaan leeyahay su-aaluhu badankoodu meeshay wada yaaliin ama youtube ka ahaato ama telegram ka ahaatee meeshay wada yaaliin hala baaro si fiican ha loola dhegeysto anugu intaasaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsan tihiin khayr baan idin rajeynayaa muuse waa mahadsantahay walaal aad iyo aad waxaa weeye abu anas soo gal magacayo meeshaad joogto abu anas batanka ballaaran ee dhexe hoose taabo ilaa cagaar uu ka noqdo batanka hoose ee u dhexeeya kamarada iyo u dhexeeya iyo taleefanka gaduudka ah taabo ilaa uu cagaar markuu noqdana ku hadal hadda bulug ayuu ku yahay soo dhawow abu anas magacaagii meeshaad joogto batanka ballaaran taabo gacanaad taagtay abu anas su-aalaad dalbatay waa lagu siiyey fadlan batanka ballaaran ee hoose taabo okay ka soco caydiid cabdilatiif ayaa aad u taagaya gacanta caydiid soo dhawow caydiid cabdilatiif soo gal horey u soo gal meesha aad joogto magacaada waa caydiid cabdilatiif wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullah magacay way balleeray aydiid cabdilatiif magaalada baydhabo koonfur galbeed soomaaliya
maasha allah soo dhowow Ee, soo dhowow waa cabdilla eedan mahadsantiin soo barnaamijkiisin wadan waa ku cudur daaradee lahajida oo mahaatiriga oo nasafeelan kafaylahayn dartee su-aalo ana qaabo wayb waa in mar badan wayba argaana guruubida oo telegramka liis oo laha qorow oo muqdisho antango gaalka intango markan meel iska diiwaan geliyahay oo goona ay jirtee miskahayna isin eertano sugan eertan ilaa iyo applicationka lagu soo biyow su-aalaytaasay tiyo eedan mahadsantiin aydid waa tani waa mahadsantahay caydiid abaabulka walaalkay caydiid waa mahadsantahay walaalkay si fiican lagu fahmayaa muxuu ahaa abaabul waaye liiska socdo waa abaabul ma ahan diiwaangelid ma ahan degmo walba inay dadka issii abaabulaan oo maanta maaragtay la bilaabo oo diiwaangelinta la bilaabo xafladda la qabta kadib inaan dadka ugu badan aan yani kobciye ay kusoo biiraan qorshaha saas ayaa loogu talagalay hadda ma ahan kolley baydhabo waa ma garana inay ku jiraan weli maana arag inay ku jiraan way dhici kartaa doynuna xitaa waan arkayay mooda miya ma aqaan meeshay maaragtay ayaantii ma aqaan magac kale lahayd dad ku jiraan arkay marka waa abaabul waa liiska socda maaha wax kale diiwaangelintu weli ma aysan bilaabin insha allah insha allah eedan mahadsanta waa daynuna iyo moodamooda iyo kulli baydhabo hoos kooyaan markan abaabulkaas inta la iska diiwaan geliyay professore abaabulkaas waa dadka u sheeg oo asxaabta kugu xiran iyo qaraabada iyo kulli inay halkan soo galaan oo ay is abaabulaan laakiin telefoon ma rabna in lasoo dhigo qofka magaciisa iyo degmada u joogo kaliya ubaan u baahan lahay eedan mahadsanta isla meeshaana soo dhigaysa caydiid waxaa leedahay hali diiwaan geliyo magacayga waa sidaasaa leedahay cabdi diini ayaa ku xigo cabdi diini soo dhowow meel walbood joogto noo sheeg halkaa ka soo hadlayso cabdi diini soo dhowow su-aashaada iyo meeshaa ka soo hadlaysa cabdi diini hallo cabdi diini soo gal hore soo gal magacaada iyo meeshaad ka soo hadlayso cabdi diini batanka ballaarane hoose taabo cabdidiini batanka ballaarane hoose kaaga muuqda batankaas taabo cagaar ha ku noqdo markaasna hadal okay ka soco bastoriska ka soco hadduu hadli waayo cabdulla weheliye cabdulla meeshaad joogtid iyo su-aashaa qabtid noogu dhaqso walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow marxaba aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan ummadda reer Kobciye waa salaamayaa wax badanaan meeshaan kala socdaa xud ogaaya xaajo falaal la yiri meeshaan wax aan moogahay aniga iima muuqdaan insha allah sharcigaas iyo abkaas iyo wixii ilaahay kuma sama diidee dhaqan ahoo noo soo kordhaan sugaynaa marka guul ilaahay ha idin barakeeyo dhammaan reer Kobciye waana idin salaamayaa guul insha allah aad baa u mahadsan tahay cabdulle nuur cabdulaahi xuseen nuur walaal meeshaad joogtid magacaada waa kaamil ah ayaad soo dhigtay meesha aad joogtid iyo su-aashaada soo jeedi adoo mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamay dhammaantiin dadka soomaaliyeed ee meesha ku jira iyo ikhyaarta kale inayaba gaar ahaan injineerkan si fiican u salaamaya insha allah oonu marar badan la soo xidhiidhnay oo waxyaalo badan aanu ka wada hadalnay waxyaalo badan naga caawiyey xagga aabka iyo xagga macnaha dadka isku xidhkiisa marka aniga muddo dheer baan ku jiray oo halkan aan joogay goobtan jooga waa Mareykanka magacayguna waa Nuur Cabdulaahi Xuseen 4 su'aalood baan qabaa adigu in badanna waan ku jiray oo xog iyo wax walba waan ka warqabaa marka 4 su'aalood waxa weeye su'aasha ugu horeysa qofku hal lacagta ma walxin sanadka
oo dhammaystiran 12 bilood hal mar ma bixin karaa 180ka su-aasha koowaad waa taas okay idan insha ka allah jawaabo nuur waa mahadsantahay walaalkii muxuu ahaa hal mar waad bixin kartaa 182.5 laakiin waxay ku xiran tahay in sanadka uu bilow yahay oo January 1st ay tahay oo weliba January 1st maahane 31st December waa inay tahay si yani maalinta January 1st ay lacagtaas u bilowdo shaqo macnaha qaabkaas ayaa loogu talagalay okay good inkastoo hadda ayaamahan ugu horeeya shaqa aysan hore ka bilaabmaynin oo sanadka ugu horeeya aan niri wax faa'iido inta badan la rajaynayo waa iska yar tahay sanadka labaadna allahu aclam iyo sanadka saddexaad laakiin waa la rajaynayaa in sanadka koowaad ay howlgal bilowdo haddii la helo tirada dadka la rabay ama lacag lagu howlgeli karo haddii la helo engineer waad mahadsantahay su-aasha waad iga qancisay jazaakallah khayran aad baad kuu salaamaya su-aasha labaad waxaa weeye diiwaangelinta qaabka loo diiwaangelinayo maxaa yeelay markii ugu horreysay aynu barnaamijkan aan bilaabaynay aynu telegramka iyo howlahan gruupka aynu bilaabaynay xagga diiwaangelinta iyo xagga abaabulka waxa aynu inoo sheegteen ama aynu wadnay inaan dad soo diiwaangelino macnaha soo muqdisho oo kale kismaayo kale oo magacyadii iyo lambaradii aan soo gudbinay ma halkaas aan tix raacaynaa mise aabka markaad soo dejiso qofkii aabkaa hela unbuu halkaa iska diiwaangelino qofku halkaasunbuu diiwaanka ka noqonaya mise liiskaa dheeren qornay baad ka tix raacaysaan waa su-aasheeda labaad nurow waa mahadsan tahay walaalkay liiskan dheer informationka meesha ku jira waa 3 magac oo keliya laga yaabo inuu kaaga jiro laakiin formka waa 3 page ilaa 4 page meelahaas oo intaas information kaaga baahan laana waxaan waa lacag waxa waaye oo mustaqbal ah dhaxal imaanaya information cinwaankaaga la rabaa dhaxal koobkaaga la rabaa telefoonadaadii iyo adreesyadaadii iyo waxaasoo dhan soo galaya يعني information full oo maarka qofka uu buuxinayo formka marka registrationka laba nooc noqonaa mid online ah iyo mid offline ah offline waxa loogu talagalay waa xafiisyada qofka inuu yimaado qof aan aqoonin مثلا computer si loo isticmaalo iyo mobilekan smartiga si aan loo isticmaalo qof aan aqoonin ayaa loogu talagalay in maaragtay uu xafiiska intuu yimaado kobciye oo xafiis meel walban xafiis ku lahaan doonto insha Allah xafiiskaas uu imaanaya waa la diiwaangelinaya formka laga buuxinaya kadibna lacagtu account ku shubaya kadibna sidaas loo aqbalaya kaas waa mid offline-ki laakiin online-ki waa laba nooc mid waa yani web based waa oo macnaheedu website-ki ayuu ku jiraa oo formka aad ka soo degsanaysaa kadibna upload aad ku samaynaysaa markaad buuxiso kamidka mobileka applicationka mobileka aad soo degsan doontiin insha Allah oo dhammaystiran hadda isagana wuxuu leeyahay registration markaad gasho waad soo degsanay formkii waad buuxinaysaa kadibna upload aad leedahay markuu upload gareeyo kadibna send aad leedahay intaasoo option uu leeyahay kadibna saas uu soo baxaya marka wadamadan qarbiga iyo dadka aababka isticmaalaya way iska diiwaangelin karaan aabka saasaan u fahmaa si caadi isaga soo diiwaangelin karaan bidnillahi kariim jazakallah khayran engineer aad baan kaaga mahadcelinaya su-aashayda saddexaad waxaa weeye engineer aabkan hadda aan isticmaalayna waa international kobciyo cooperative waan naqaanaa si fiican baan u aqaanaa oga warqabaa meel walba adduunka meel walba ay ka jirtaa maraykankana waddankanaga way ka jirtaa marka maadaama Soomaali nahay wax calaamad oo muujinaya inay qaybtan Soomaali ay leedahay ma jira maxaa yeelay magacii waa English oo adduunka isticmaala calaamadiina waa calaamadaas laakiinse calankeenii ama eray Soomaali ah oo ku laran aabka markii la soo dejinayo ama calaamadan miyuu jiraan programkaas muu inoo jira mise waa sidan aynu ku howlgalaynaa jazakallah khayran waa su-aasheeda saddexaad nuur waa mahadsantahay walaalkay kobciye kelmad af Soomaali waa kelmad English maaha kelmad Talyaanina maaha kelmad Carabina maaha kobciye ayaa ku qoran kobciye haddaad qorto waad arkaysaa taasa calaamad ku ah dambe cooperative maahan kobciye ku qoran abka yani cinwaanka kobciye keliya ku qoran cinwaanka hoose ee abka magaciisa laakiin dhexda waxaa kaga yaalo iconka dhexdiisa waxaa kaga yaalo loogadii kobciye ayaa kaga taalo laakiin abka magaciisa waa kobciye
okay waan waana af fahmay marka soomaali af Soomaaliga aan baan ku muujinayaa wax calanka iyo wax calaamado oo taas oo ma jirto iyo taas ma inaan qaadanin waan fahmada jazakallahu khairan engineer waan kaaga mahadcelinayaa su'aashayda afraad waxa weeye engineer waan la soconnaa dadkeena Soomaaliyeed waa muslim waana hal luqad iyo diin hal diin bay leeyihiin laakiinse dhibaatada in haysato waxa weeye khilaaf badan baan yaynu leenahay hadday noqoto maamul hadday noqoto wax taaban oo qof Soomaali taabto khilaaf buu leeyahay marka waxaa jirta hab macnaha culimmadan ka hadlayaa si macnaha khilaafkaas loo dhammaystiro culimmadu wadamada ay joogaan waxay ku leeyihiin meelo ay macnaha ay ku leeyihiin maxaa la yidhaahaa leeg macnaha community macnaha meel ay culimmadu ay soogu timaado oo ay leeyihiin amiir ku xigeen ayay wadamadu leeyihiin tusaale ahaan oo kale Soomaaliya oo kale culimmada inay kristaan u malaynayaa xafiis ay noocaas leeyihiin oo awqaafta diinta la yiraahdo Hargeysa oo kale gobolladoo kale qaab noocaasa miyay sharciga culimmada aan marinayna miyay qaab noocaas maraysaa mise culimo kasta oo masaajid joogta inuu inagu rabnaa inay noo baasgareeyaan sharcigeena islaamiska ee lagu dhisayo kobciyo corporation su'aasheeda ugu dambaysa waa taas okay waa mahadsantahay nuurow anaga muxuu ahaa waxaan la raadsanay culimada figurska oo muuqda oo caanka ah oo ummadda ay ka dambayso cafwan culimada dadka ay ka dambeeyaan ayaan figurskaas raadsanay maktabad iyo community xafiis maana raadsan berito waxaan ballansanahay xafiis oo xafiisu dacwo iyo maaragtay waldhishaad la yiraahdo saasaan filaya magacaas oo ay yani rangarayaan muxuu ahaa sheekh dirir iyo waxaa wada iyo sheekh cusmaan langare iyo culamo kale beriyaan ballansanahay beriyaan u tegayaa annaga waxaan rabnaa qof walba oo culimada meesha culimada inay horboodaana loo baahan yahay maahan inaan maaragtay annaga fully dad waxaan nahay muslimiina oo isku afsaa sheegtay oo isku luuqad isku jinsiya wax walba aan soo egnahay oo meel aan kala jirin qoqobkan iyo waxaan dhex galayna waa waxyaabo shaydaan iyo dad oo cadowno ah ay ka faa'iideysteen oo soo dhex dhigeen marka waxyaabaha aan rabno inay kobciyo ilaahay noogu sabab uga dhiga inay baaba'aan ay ka mid tahay marka culimada annaga uma fiirin dariiqana uma fiirin yani wax kale umana fiirin culimo kasta oo caan ah oo ummadda ay ka dambayso oo la yaqaano oo dhan ayaan raadsanay ayaana siinay muxuu ahaa sharcigii aan u dhiibnay oo aan niri soo akriya laakiin culimmadu waxaa caqabada ka hortimid culimmada qaarna way ka warqabaan qaarna ma yaqaaniinba kobciye marka sharci uusan wixii loo waday uusan aqoonin qofkii ugu dhiirana inuu akriyo ma ku dhiiran karo that's why aan culimmada on go-aan ku gaarnay inaan presentation u samayn intaan meel isugu keeno hadda xamar waxaa noo ballansay inaan meel isugu keeno oo hal maalin aan meel aan wada fariisano culimmada waaweyn oo aan presentation u samayno berito saasoo kaleeto culimmada inaan u tago oo presentation u sameeyo qorshaha saas waa jazakallahu khairan in yar hal qodob baan ku darsan lahaa idinkoo raalli ah in badan oo laba sano ama hal sano iyo bar baan barnaamijka aan daadihinaynay welina maana ka hadal oo calashaan ahaan dee wixii qofka ay itusoo itaabsii baan meel walba yaynu ku haynaa marka su'aasheeda waxaa weeye ugu dambaysa oo aan kusoo gebagabeynayo engineer waad la socotaa culummo ma lihin innagu oo 1 iyo 2 oo type noocaas leh maxaa yeelay culummo meel oo community ama macnaha midaysan haddaan leenahay dhibaatadan maynayna soo martay marka waxyaalaha aan ka hadlayo caqabadaha iyo khilaafka na haysta xagga diinta iyo hogaaminta culummadeennu inaga haystaa marka maadaama idinku iga xog ogaalsan tihiin miyaynu leenahay culummo 1 iyo 2 ah oo noocaasa oo isku xidhan oo meel lagala hadli karo oo wax la soo jeedin kara oo waxna laga qori karo waxna laga aqbali karo miyaa inii muuqataa hawshaas miyaan leenahay haddaan Soomaali nahay jazakallahu khairan nuur waa mahadsantahay su'aalo muhiima hadda weydiisa runtii kobciye departmentiya ka kooban tahay
department waxaa jiro oo la yiraahdo departmentkii sharciyada culimada department ayaa of hogaaminaysa document culimada hogaaminaysa culimada hogaaminaysa wixii sharci ah oo maaragtay wax walba loo fiiriyo sharciga islaamka culimada ayaa number 1 ka ah inay horbooda la rabo culimada meesha imaanaysana waa culimo ku imaanayso yani si collection ah hadduu la yiraahdo oo aanan loo fiirinaynin dariiqadu yahay iyo midda laakiin ninka waa inuu caalim yahay waa inuu yani khilaaf diinina totally waxa waaye kobciye mamnuucu ka yahay khilaaf diineed in la dhex keeno يعني فكر إسلامي أو كلا دوان أو كلا نوع إن لو أبلاي كره كبعية لبعض بدن كينسا سيد هذا خلاف كأمارك الدين جاجرة بدأ كبعية ممنوعة كتاه شرعيا وقرأ خلاف دينه باشس إنه سوقني أو وحي اللي سكوا فقسيه هاي كبعية لو هو جابي قدام تجودنا لفيريو وحيابها الفرق أو مارك فرق اللي سكوا خلاف سيه هينا عن دين عن إسكندر ومدينا أو شغيلة ده بعصن أنا نروح كهذلنا وحيابه أو فرعي أو معنا على الحين هذا كهذا ومدينا أي مش ده وأساس واحد صعود علماء أي اسكت دقيقة أو اسقى قبصدي أو واحد هو مشغولي وحي مهم كهان أنا ماشي كبحين أما ولا ربي إني علماء هربودان للربي ماشي كبحين مرك أنا خلاف ديني لما راح إيمان كانوا بإذن الله يكرم تاسان كبدالين engineer midda kale aad oo la socda culimo waxaa jirta ku takhasustay arrimaha dhaqa sida Sheekh Mustafa oo kale arrimaha ugu weyn oo ku takhasustay dadka u baahan ku jira culimada u baahan ku jira xitaa anu waxaan soo jeedin lahaa oo fikir baan hadda soo jeedinayaa su'aasheedu way dhamaatay engineer jazaakallahu khayran aad baad u mahadsantiin dhagaystayaasha iyo inagoo dhanba Soomaali oo macnaha dhibaatada ku jirta ka baxdan baynu inagoo dhan diyaar u nahay idinkuna aad diyaar u tihiin annaguna aan diyaar u nahay muhiimadda ugu weyn waxa weeye ciladu meesha inaga haysato Soomaali meesha ciladu ka haysato waxa weeye dadka talada ugu habboon bay taladii yaan tala gacanta ku haynin anigu tala ahaan baan soo jeedin lahaa oo waa iga talo waxaan anu tala soo jeedin lahaa dadka culimada ah ee Soomaali ee diinta xag dhaqaalo xag maadi dhan walba bartay inay xubin ka noqdaan baan anu soo jeedin lahaa kobciyo kobreesho hadday noqoto financially waxa la raadinayaba taas waa nuurow waxaan raadinayna waa midaas anaga cid aan ka hor istaagi karno kobciyo isir Soomaali oo dhan iskale qof kasta aqoonta loo baahan yahay kobciyo ayadaa sheegayso qof noocaas aan u baahanahay ayadaa leh oo la anas garaynaya qaabkaas aan wax lagu qaadanaa ama dadka kale waa dadkii aan hor u sheegnay general assembly iyo maaragtay gudiyadii kale waa dadka general assembly waa dadka doorashada ku imaanaya oo shuruudahaas iyo waxaas hore aan u sheegnayna lagu soo dooran doono bin Ilaahay kariim dadkaas waxa ku jiro dad diin leh oo dad amaano leh ayaa ku jiro dad aqoon laha ku jiro marka wixii dhan way ku idin leeyihiin ba meesha gabiir waxa la rabaa dad aqoon yahana ah inay hogaamiyaan oo fahmi kara oo casrigana la socda inay hogaamiyaan hadafka kobciyo loo dhisaaba noocaas ahba okay nuur waxa way waad qanacday su'aalahaadii iyo waa ku mahadsan tahay soo jeedintii waqtiga ayaa gabaabsi naga ah waxaan hadda jaanis fursad siinayaa Yunis Cabdirasaaq oo in muddo ah gacanta taagay Yunis soo dhawow meesha aad joogto noo sheeg iyo su'aashaada waa mahadsantahay Yunis batanka ballaaran hoose taaba Yunis batanka ballaaran hoose أنا أسكت شيء كيسا يقول دعاء soo dhawow كبعي واني سلامي مقعد يونس عبد محمد أو ديان كعيش بيان يجلس على الله أنا كل حوا وأبدي وحاس كلي واسك مشغول سنة لكن سؤال مقبي وحن روا ما هويرتي أو كيماتي عقاسي وكالجدود هل دبر داي waxaad su'aal inay weydiiso marka ina bal ugu jawaabtina jeclaala ma igu dhiibi karaa soo dhawow waa u dhiibi kartaa gudoomiye soo dhawaade waa dhowe maasha allah ayo walaal hore u soco magacayga su'aashaada waata maxamuud kaashaa la yiraahdaa
warkaan hadda waa maqlay si fiican idiin tixgelinaya u soo dhawaanaya marka meeshaan deganahana ceeldibiraa la yidhahdaa inaa marka waddankaas timaadiin oo dawaan geli kartiin oo waddankaas inaad dad keentiin lacala madinka suurowdaa ها ولا شيء مال والبلغو إيمانا إن شاء الله مال والب الصومالي دقنتهاي والتقى إن شاء الله كبعي وتيسا maasha allah maasha allah no hadda internetka hadda waxaas ma isticmaalo meeshaan ما miyiga انت ما شاء الله الغو إيمانا إن شاء الله بإذن الله كبير أما ماشي وجود مركز صورة قلعة وهذا إيمان كرتي لبا مد أم بين قونيسا مارك وكل مركز على أغانا يا دول ليرة أنا هذا عمر markan hadda camar aan joogaa laakiin wax caafimaad iyo xasaas ah imid balse meesha وايه deegaanka إن شاء الله ceeldiir baa leeyahay ما شاء الله هاي الغو إيمانا الله ولا شيء إن كعافية شاء الله 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 كعافية كعافية والله إيمانيا إن شاء ما الله سنت ما شاء الله وما ما شاء الله سنت ما وما شاء الله هاي sidoo الله kale كعافية ولا شيء ليبان عبد الرشيد ليبان عبد الرشيد سودو ما شاء جوكتو يا سؤال هذا ليبان عبد الرشيد ليبان هذا الوقت يعني وصل هذا واسكو جرتاي ليبان هذا القبيل ولا قد بيا اوكي ليبان بروفيسور عاودن كقدب ليبان مرك قعنتو تاغي عاودن ليبان dhowr qof oo saas gacanta u taagaya oo adhow markii laga furanayo su-aasha iska joojiyaa jira اوكي ka socdo ليبان واسمغلي ويني حلوة محمود عبدي حلوة هدينا مغليسو ماشي aad joogtiyo su-aashaada حلوة xaluu badda ka ballaarinay hoose taabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم حلوة السلام ورحمة الله وبركاته حلوة محمد عبدواه أنا والسؤال ما قبه لكن مركان تابنا waxaan rabay inaan justo aan idin sheego inaan taageersanahay wiilkii hadda hadlaayay maasha Allah wax badan meesha kaliya oon ka hadlownay waxaa ka mid ah in dadkii ehelka u ahaa maamulka xoogaa yar laga Soomaalidu ay ka leexiyaan maasha Allah ilaaha idin barakeeyo sida wiilku sheegay soo badsada dadka maamulka ehelka u ahoo maaragtay cilmiga adduunka iyo cilmiga aakhirada bartay waxaa wiilkaas inaan taageeri rabay maasha Allah ilaaha idin barakeeyo waa idin salaam qaali ah waadna mahadsantihiin samirkana ilaahay ha noo badiyo annagana dad fiican Allah naga dhigo barakallahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير وما تصنتها حلوة الله كبركايو أبو بكر محمد طيب أبو بكر محمد ابن طيب الصومالي سودو ما شاء جوكتو يسوع هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع سنتين دمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ما شاء الله حتى كور سؤال ودي كلي عربينا إني كتفي فترة وقت ما نوبل أمانة زمان سو قاري دونتا كبعية كومبرتيف إن عندك كان خد كهيسن سو قرو سو قلي جروبك مشتر دبا حاجات جوكتا أبو بكر ماشي جوكتو ماذا شيء waxaan joogaa godob jiraan meel yiraahdo oo gobolka Nugaal ka tirsan Puntland ما شاء الله ما شاء الله انجينير ايه Abu Bakar waa balsata walaalkay muxuu ahaa meel walba oo la joogo hadda su-aashii gabadha aan ugu jawaabayna ay ahayd meel walba oo qof Soomaali oo kobciye raba ee jooga insha Allah waa tagayna bidillahi kariim xitaa walow safar dad aan group intaan habayno oo safar ahaan ay u baxaan meesha mission ahaan ay ugu tagaan oo soo diiwaan geliyaan dadka meesha jooga xitaa ba Allah ka dhigay haddii xitaa xafiis uu gaari waayo kor iyo hoos waxaan rabnaa meel walba in la gaaro insha Allah daruurina ma ahan inaad halkan dadka ay ku jiraan shardi ma ahan halkan waxa way meesha iska warqabka waa reer gudun laba adiga ayaa meesha ugu jiro safiir u ah oo akhbaartana gaarsiin kara marka meel walba waa tagayna insha Allah bidillahi kariim hay qof ku xiga
عليكم السلام. meeshaad joogto aamino sheekh daahir halka aad joogtid meesha kasoo hadlaysid su-aashaada aamino sheekh daahir aamino weyna maqli weyday aamino sheekh daahir ma maqasho cabdi ninka cabdi la yidhaahdo cabdi oo keliya ninkay u qoran tahay cabdi soo dhowow magacaadoo dhammaystiran iyo meeshaad ka soo hadlayso iyo su-aashaada oo isbarkan cabdi ruuxa gacanta suu u taagaya markii magaciisa la sheegaa la waayayaa gebigiis cabdi ma batanka maqashaa ballaarantaaba batanka ballaarantaaba dhexe ee hoose batanka ballaaran ee hoose fadlan batankaas taabo si aa u hadishid haddaadan batanka taaban oo cagaar uusan isu bedelin kalarkiisa ma hadli kartid ay ka soco borsore ka haye soco maxamed xuseen hadduuna maqlaayo maxamed xuseen meeshaa joogtid sheeg maxamed xuseen maxamed xuseen meeshaad joogtid su-aashaada maxamed xuseen ka soco borsore ka soco shukri abukar meeshaad joogtid su-aashaada waktigaan nahayo batoonka batanka ballaaran ee hoose taabo haddaad rabto inaad hadasho shukri abukar hore haa uga soo gal waa idin Waa- salaamay waxaan rabaa keliya oon rabaa inaan la hadlo dadka su-aal ma qabo waxaan rabaa barnaamijkan soo u fududaado qof walba oo soo gasho meeshan way fahamsan tahay qiimaha uu leeyahay in ay u sheer garayso dadka madlamkeeda ah si ay u bataan dadka kasoo qaybgalaya waa mahadsan tahay waa fariin aad u wanaagsan intaas fariin loo sheegi lahaa aniga aad baa u mahad markaan arkay bishii sanadkii hore bilowgii markaan arkay youtubekan ka sheer gareeyey dad badan ay la soo xiriiray marka intaasaan rabaa okay xageed joogtaa shukriye sweden sweden maasha allah guulayso axmed cabdi maxamed cabdi axmed maxamed ayaa ku xiga ruuxa ku xigo waktiga ayaa aad gabaabsi noogu ah adinkoo mahadsan horey u gal meesha aad joogto cabdi axmed السلام cabdi عليكم meeshaad joogto calaykum السلام salaam عليكم waraxmatullah ورحمة الله وبركاته waxaan joogaa London oo kasoo hadlaya waxaan rabaa inaan weydiiyo barnaamijka waxaa tiraahdaa waxaa lagu bilaabayaa supermarketyo meel laga furayo qorshe kale ma jira miya oo ka duwan supermarketyada oo lagu bilaabi karo walaalkay waa mahadsan tahay cabdi maxamed miya axmed cabdi waaye axmed waa mahadsanta walaalkay walaalow supermarketka qaab istaraatiiji ayaan u daraasaynay leannu waxa waaye waxyaabaha quutal daruuriga horta waxaan ka fikirnay dadka haddaan bilowno kalluun laga bilaabo kalluun inta kaa cunaysa dadka ayaa yar haddaad xoolo bilowdo hilib dadka cunaya ama meel walbanu iska yaallaa dadka cunayana maaragta ama iibsanayana waa yar yihiin marka laakiin quutal daruuriga kale bariiskii iyo baastadii raashinka guud ahaan iyo dharkii iyo kabihii waxyaabaha oo guriga laga isticmaalo oo necessariga ah oo daily lifeka maaragta ku xiran ayaa marka hore waxaa la go'aansaday in laga bilaabo oo asaga kadibna na hago dukaamadaas iyo supermarketyadaas ayaga ay na hagaan oo yidhaahdaan war waxaasaa loo baahan yahay shaygii marka la maalgeliyo oo shayga marka dukaanka haddii yidhaahdo khudaaraa loo baahan yahay beerleyda in la maalgeliyo oo khudaartii la keeno kalluunaa loo baahan yahay kalluunkii la maalgeliyo xoolaa caanaa loo baahan yahay caanihii la maalgeliyo inuu asaga noqdo guidekii oo hogaaminaya mashaariicii la maalgelin lahaa ayaan go'aansanay marka qaabkaas ayaa loo go'aamiyey supermarketka in laga bilaabo waa fahmi waa masan tahay walaal khayr alaa ku siiyey laakiin soomaalida badankood weliba dadka waddanka jooga
supermarketkii wuxuu horta ma fahamsana badankooda saan ma filayana waa kulli fahamseen muqdisho fere supermarket iyo dukaan samuel magacii unbaa loo kala bedelay qof walba intuu subaxi ka laho uu dukaan tagaa oo wax kasoo iibsadaa qof aan subax walba dukaan wax kasoo iibsanayna maba jiraba tuulaba allah ka joogo allah ka dhiga hadduu joogo subaxii qasab waa inuu soo iibsadaa caleen sokor yani tafaariiqda saasoo kale ay usoo iibsanayaan marka qof walba waa ku qasban yahay inuu dukaan subaxii aado marka maadaama taas ay dhacday oo taasna quto daruurigii iyo wax walba halbowle ay u noqdeen oo dhexaadkii u noqday kaas ayaa la go'aansan inaan maaragtay ka bilowno wixii productii lagu iibin lahaana uu asaga dukaankii dalbado oo yidhahdo waxaasaan u baahanahay oo wixii la maalgeliyo marka ma raashin kaliya lagu iibinaya meesha marka maya raashin keliya maahan wax walba oo reerahaas ay u baahan yihiin oo meesha degan ayaa la keenayaa biidnillahi kariim raashin keliya maahan laakiin raashinku waa basic waay waxyaabaha ugu muhiimsan waay marka asaga waxaan u go'aansanay inuu na hago mashruucan la maalgelinayo waddanka ilaan waddankeena khayraad badana ka buuxa marka khayraadkaas aan waddanka ka buuxa in horta dalabkiisa aan suuqa ka aragno markaan suuqa ka aragno dalabkiisa la maalgeliyo qaabkaasaa loo go'aansaday waa mahadsan tahay waxaa weye injineere ruuxii ugu dambeeyey maxamed xuseen oo in badan gacanta taagayey maxamed xuseen ha noqdo ruuxa ugu dambeeyo waktigiina waa gabagabo halkaasuu ku egyahay maxamed xuseen su-aashaadii meeshaad joogtid waa ruuxa ugu dambeeyey maxamed xuseen batonka dhexda taabo maxamed xuseen batanka dhexda ilaa cagaar uu ka noqdo intaad damisid soo gal cagaar kuu noqona markaas ka bax maxamed wuu ku jiraa muu hadla waa ku jirtaa hadal fadl maxamed xuseen hadal waa lagu maqlayaa insha allah halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah halo salaamu calaykum waa lagu maqlaa maxamed meeshaad joogtid iyo su-aashaada may maqashaan salaamu calaykum calaykum salaam waa lagu maqlaa salaamu calaykum may maqashaan calaykum asalaam waraxmatullah waa lagu maqlaa maxamedow maasha allah ii waran seeti xaaladda caafimaadka waran alxamdulilah maasha allah wallahi dhowr jeer isku soo dayay inaan ka hadlo meeshaan waa ii suurtageli weysay ulaan malaa 7 wiig minaa 8 wiig camal iska nasiib waa si random loo doortay jaanis waa haysataa hadda insha allah maxamed yuusuf la yidhaha magacayga waxaan joogaa dalka maraykanka marka waxaan rabay aniga inaan ka bilaabo maarata qofka meel baa u daran mogtahay waa sax soo dhow ka bilaabo insha allah sadaqa jaari inaan ka bilaabo aan rabaa haye halo mila maqlaa waa lagu maqlaa maxamed si fiican waxaan rabaa insha allah inaan ka bilaabo aniga sadaqa jaari inaan ka bilaabo aan rabaa hadii la yidhaaho haye marka wax walba waa iska weli soo maaha kulli qofka option asiga iskale xor waay taasa ka bilaabo rabaa insha allah aniga weli marka lama bilaabin marka la bilaabo waxaan u malaynaa wax walba waa la socdaa xilligay bilaabana waxaas idima sii su'aalaya insha allah bal maasha allah waxyaalo wax fiican baad ummadda uma samayseen insha allah aad baad allah isanol waa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii u dambeysay saacadda waxay ku taagan tahay waqtiga loogu talagalay kulan midkan la mid ah toddobaadka dambe maalinteeda kale intaan ku kulmayno allah subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa khayr barwaaqo caafimaad iyo bashbash amni iyo barwaaqo ha noo soo gabagabeeyo walaalkeen aayado qur'aan min dikri alxakiim abu cabdallah noogu soo xir ilaahay ha noo barakeeyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال غير كبعية إلهي دمانتين بأدنى أخلا هذه بركية دمانتين إلهي بركية مشروعا إلهي نو بركية أخيارتنا ولا ليال سخاسة ودعينو يولاشين هودن يونس شيخ يونس ورنتي قفك ما شاء الله قولهان إيو كاللايف وحو نبا إنو سميسي إنو دادهين السا انتا كبعدي ولا ليال إلهي خير السيو khiyaarta iyo inaguba waxa aynu wadnaa waa asbaabtii laakiin mashruucan kobciye inuu kobciyo inoo noqdo oo sidaan jecelahay iyo sidaad jeceshihiinba ay ilahay ina aragsiiyo ina gaadhsiiyo awoodda allah iskale subxaana wa tacaala
allehna raxmaankana waa inoo sheegay dariiqaynu u baahannahay dhammaantii baynanu marno kow allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman yattaqi illaah yajcal lahu min amrihi yusraa allah ballan buu ina siiye walaalayaalow wuxuu yidhi addoommadu ana iga baqa adaad iga baqdaan hawlihiinoo dhanba anaa idin fududaynaya waman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuh allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aniga itala saarta cidda itala saarta anaa ku filan sidoo kale istikfaartaynu badina walaalayaalow iyo qur'aanka kitaabka subxaana wa tacaala oo in xiriir dhow la yeelano marka allah raxmaanka waxaan ka baryayaa mar kale in allah mashruuca inoo barakeeyo qulubteena iswaafajiyo fakriga kala cararka kala qoqobka isnacaybka ilahay naga dulqaado ilahay inagu bedelo dad muslimiin ah oo soomaali ah oo isjecel oo keenna gaarsa kasoo ka yimaada jabuuti ku socda isagoo alla un ka baqay mooye cid kale ka baqay si xaragale uu mari karo ilahay hayna gaadhsiiyo جزاكم الله آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم آمين السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته